maanta waxaynu ka doodayni waa nabadgelyada iyo horumarinteeda qodobka afraad sidoo qodobkan xarfihiisu u dhigan yihiinba nabadgelyada horumarinteeda wixii wanaajinayana waa in laga hadlo wixii nabadgelyada horumarinteeda dib u keenaya ama bulshadu ay calaamad su'aal saarayso ay su'aal iska weydiinaysana waa in laga hadlo tusaale imika waxaan bartan aan uga mahad celinayaa marka ugu horeysa komishanka doorashooyinka jamhuuriyadda Somaliland iyagoo oo dadaal fara badan ka galay siday degdeg ugu qabsoomi lahayd doorashada ayna cayimeen xilliga ay ku dhacayso doorashada madaxtooyada iyo tawarrada siyaasadda barlabaad waxaan isagna bartan aan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo isagna 24 saac gudahood ku ogolaaday soo jeedinta gudoomiye markaa nabadgelyada haddaan kusoo noqdo horumarinteeda dhalinyarta in xukuumaddu ay bulshada dhalinyarta ama wixii akhlaaqiyaadka wax u dhimaya meelaha ama suuq ha noqoto ama wax la iskaga duuduuba ha noqoto kusoo gudbinaya in xukuumaddu ay nacam ka wacyigeliso waxaa dhibaatooyinkaas oo dhan u keenaya ee nabadgelyo darro xumo ku keenaya midda kale xukuumaddu waa inay cadaadiska ay ka daysaa imika beryaha dambe oo kale halkaas iyo gobolka awdal dhibta taagani waxay tahay in laga hadlo ay mudan tahay in dhalinyartii cadaadis fara badan la saarayo xarig fara badan ay mutaysanayaan intaas laga nacam xukuumaddu ay hoos u eegto bal dhalinyarta oo wixii wanaagay u soo jeedin kartay kala hadli karto ay taas kala hadasho waxaana leeyahay nabadgelyadu waa inoo wada muhiim dhammaan shacabka jamhuuriyadda Somaliland aynu ilaashano nabadgelyada xuskii dhiinmayna uu soo dhow yahay isagana foojignaan dheeraada hal la muujiyo assalaamu calaykum